بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إذا الهانتين به waxaad nala socotaan ama aad naga daawanaysaan barnaamijkii quruxda badnaa ee xiisaha badnaa ee idin xiiso gelin jiray ee alaaba aad ka daawanayseen studio saahiibaan youtube-ka aynu ku leenahay weliba waxaana ka tirsannahay magaalada muqdisho. barnaamijkuna waxaad filaysaa waa wiil daayar magaciisana asaga ayaa idiin sheegi doona. kusoo dhawow barnaamijka maxamed. maasha allah waan dhowahay magacaygu waa Suleymaan aniga hadii aan dhameystiro Suleymaan maxamed xamuud maasha allah waan dhowahay intaad soo dhaweysaan aad ku mahadsantahay maxamed waxaan rabaa su'aalo kooban inaan ku weydiiyo. su'aalaasna waxay ka mid yihiin bal sidaad u aragtaa dalka Soomaaliya joogitaankiisa iyo qaabku hadda ku socday iyo dadka dibadda joogo maxaad ugu baaqi lahayd? wallahi maanta hadii aan eegno dalka Soomaaliya macnaheeda sidoo hadda u socdo iyo sidoo u tarmaayo iyo dowladnimada jirto hadii aan fiirino waxay la tahay Soomaaliya inay tahay macnaheeda dad hadda soo sare kacayo oo xagga dhankaas xagga siyaasadda xagga meel kasta oo ka dhisan oo maanta dib isku dhisi karo dowlad midaysan noqoto. midda labaadna macnaheeda dadka Soomaalida oo wadamada kala soo qurbaha jooga waxaan kuwanayaa in dalkooda soo laabtaan waliba dalkooda nabada ka jirto wax waliba maanta ay uga baadaan weelaan aniga dawlad federaaliga dhalatay qof walba meesha saarkiisa ay dowladda indaas idana waxaan ilaa ugu weynayaa boqolkiiba in ku soo laabtaan dalkooda waliba dal nabada oo wax walaadaysan markii waaya aad u maasata. waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo adiga wax ma barataa? aniga waxaan bartaa teeda kale macnaheedu inkastoo waxbarashadii aysan ahayn aniga joogto ah ama joogto ah sida ay u sheegtay marka aniga waxaan ahaa arday hadda dugsiga sare ka soo baxay misna hadda doonay inuu jaamacad galo oo macnaheedu hadda inuu jaamacad galo si uu noqdo oo ama dalkiisa wax uu qabto iyo dadkiisa. okay marka waxbarashada halkeed ugu jeceshahay in aad wax ka barato ama cilmigeed jeceshahay inaad barato? aniga ahantiis waxaan jeclahay macnaheedu inaan barto cilmiga geology-ga si aan dalkayga wax ugu qabto ama cilmiga chemistry-ga biochemistry-ga ana dalkayga wax uu qabto iyo dadkayga bari ka maalin waxyaabo badan jiro oo dadka anfacayo dalkan anfacayo oo waliba aan laga maarmin. sadaradeed waxaan jeclahay inaan ka caawiyo dadka waxyaabaha qaar oo ayaga ka caawin karo maadaama ay dalkayga dowladuna ay dowladayda. waayahay imise sano ayaa jirta adiga xageesa deganta xaafadada waaqee? aniga ahaantayda waxaan jiraa 19 aniga 19 sano Soomaaliya noogu sheegtay 19 sano waxaan deganahay xamarija qaasifan xamarija waa deganahay macnaheedu waayahay familka waa ay nool yihiin dabcan way nool yihiin laakiin xogaa isma joogna kooda macnaheedu kaliya aan noolahay sida aniga ismaareeyo saas waa marka maxaad ka shaqaysaa marka? wallahi shaqo joogto oo saas ma jirto xogaa aniga waxaan ogahay in xogaa filimada yar aad turjinto oo hadda ku soo biiray iska tagayar hadda soo biiray macnaheedu hadda ay ku usubiyeen inkastoo macnaha aan saas aan u ahayn laakiin hadda filmaanta meelaha uu turjumayo meelahaas tagaa inkastoo waxbarashada ay soo joogtay hadii waxbarashada joogtay aan leed aniga macnaheedu jaanis uma wahlan soo 4 saac jaanis ay marka kale tan waxay alad marka macnaheedu waxbarashada waxa soo bartay aan waqti ku bixiyo si aan u akhriyo macnaheedu. waayahay waliba dhalinyarada qurbaha joogta la sheegay inaysan qurbaha inta tagaan haddana fursado badan soo maray beerdareeyay maxaad ugu baaqareed maxaad dhiileed hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtooda taariikhka u diraya? waxaan ku waarin lahaa boqolkiiba boqol dadka dhalinyarada ficiga ah oo maanta qurbaha jooga waliba jaanis badan ay soo mareen ayaga beerdareeyay inay ka faa'iideystaan maanta waa maalin berri waa maalin waxa macquul maanta wixii heli kareen in berri waayaan sax oo soo waxa koos garanaysa maanta waxa heli kartay berri aan weynaysan marka ku dhahayo hadda jaaniskaas berri meelaysa waa sax marka waxaan dhihi lahaa jaaniskiina ka faa'iideysta si dalkiina berri aad wax ugu qabsataan nafsadaada aad wax ugu qabsataan. hooyooyinkana maxaad leedahay? hooyooyinka waxa dhihi lahaa caruurta taariikhka u diraysi waalidkaba hooyooyinka waxa dhihi lahaa hooyo sidaba anaga ka maarmo hooyadana taana صح واي والد نسيس هو والد أبلنا لقى مار صح يعني والد ما كان هاي أمانته ذاك والد أوكي وإحنا عنا ملها وحدينا المين نسيت الشيء وأنا وحبر نجد بس معناه كوي ذلكوده وحقبته سوي إليه يقول معناه إنك سمعناه بيرجلية إذا كان وحبرة سي قلبي إذا وحق أبو تام معناه دول من إنه جسد ذلكوده ونسيه هاو درنا غربها اللي هذا معنا
macnaheedu midaas ay u oo badaha isku dhamaan waayahay taleefanka wadato waa hormuud sidee u aragtaa adeegyada hormuud AVC-ga sida ee taajko kale iyo barnaamijyada ay hormuud la timid sidee u aragtaa wallahi waa horumar weyn maadaama hadda macnaheedu hadda horumar badan aan sameeyay waagi hore waxaa dhici in la dhaho war hebelow miyaha niyo lacag Soomaaliya ku guriga ma si markaas uu musaafir aso soo maray oo lacagtiisa Soomaaliya laakiin hadda waa la hormaray sababtoo ah waxaa dhacday macnaheedu saaxiib macnaha lacagtada ku miyaha weef ag asoo geeliis raacanayo asoo geeliis daba socdo meel kasta ceelkiisa shubana xitaa uu dhacay lacagtaas marka horumar weyn waxaa noo cadeynaysa inay macnaha hormuud oo horumar weyn sameysay dalka Soomaaliya in macnaheedu horumar weyn ay ka sameysay ay baahi tirto bulshada okay ma isleedahay marka adeegyo kale hadda waxa soo socda hormuud ay soo wado oo cusub oo hadda halkan aan ka sheegi karin adeegyadaas ma filaysaa in waxtar weyn ay bulshada u qaban doonaan boqolkiiba waan jeclahay in hormuud macnaha horumar badan ay sameeyay doonto ama ay ku fikirayso macnaheedu hadda ani ahaantayda maanta haddii aan awoodi lahaa inaan dalka wax ku soo kordhiyo sababtoo ah inkastoo xataa ay dhawaato doonaan macnaheedu aniga ma awoodo inaan ku soo kordhiyo sababtoo ah ma yihiin maanta meel qabeenaan waxbarashadiisa oo dhammaystiran tahay iyo si kastaba meel kastaba ka soo qabo marka aniga ahaantayda waxaan dhihi lahaa macnaha niyadii fikirda ku jirta ama ka hadla macnaha maanta waxay ka dambeeyay in dalka horumar gaarsiinayso horumar inta badan boqolkiiba 90 ay gaarsiisay laakiin tobanka dhinac ku doontaa waayahay yaa taageertaa kooxaha Soomaaliyeed kooxaha Soomaaliyeed waxaa taageeraa banaadir taageertaa cariga Ingiriiska ayaa ka taageertaa inkastoo anaga aan u dhalan cariga Ingiriiska inta kasoo u dhalan waxaa taageeraa kooxda Arsenal Isbaanyoolkana Spain ma taageertid Barcelona taageertaa bas afka lagu galnay oo Real Madrid taageertaa waayahay magacaaga mar labaad iyo mar saddexaad ba uu soo celiyay saaxiib macna Suleymaan Maxamed Maxamuud ku magac dheer Suleymaan Tubeec Suleymaan fanaan baa tahay marka baad xiiseynaysaa fanaaniinta Soomaaliyeed keeba u jeceshahay wiilish badan u jeclahay inkastoo reergeesi u badan yihiin haddana macnaheedu kuwa hadda joogo waxaa ka taageeraa Muqdisho kuwa macnaheedu hargeysana waxaa ka taageeraa Mursal BK asaas waa عوالة سيدي اسكتين عوالة أنا أسيل لفتيس وتاجر ما شاء الله وحدي لانيو سكسي أعتبر ضمان أنت سكتاجر فنك سومالي أوكي ما حكوا قرشة صدق أرضي الشخصية هانت هذا أنت ذو حقيقة قرشة سن ما دام هذا هاي من غيره وصبح هاي أخبارنا إن معناها برشة لما هنلشي هرمل جالسيو اسكو فينا عن نقطة ومعنيه نلشي كذا معاه ما شاء الله waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aktarada hadda filimada hindiga keebad marka taageertaa marka daawanayso fiirsanayso inta badan way badan yihiin okay macnaheedu aktarada kale kuwa hadii u jirto macnaha communication macnaheedu shacablayaasha aktarada laadarinta inkastoo macnaheedu laadarinta badan aan خاصة أنا كأقول هذا المعني أنت بدل أنت أخانا وعندي في هذا التلفزيون أوكي وحكي تغيرا فؤاد أذكر إلى هلا العراق جيكي حاولين مركا أبي صح أطورياس أنا عندي هندي أطورياس هندي دوحة تغيرا سلمان خان لا جون أبراي اوكي ugu dambeyntii dawladda maxaad ugu baaqaysaa ugu dambeyntii dawladda waxa uu baaqayaa maanta dawlad wanaagsan aan nahay inkastoo dhalinyaradii haddana ay aqoonta ay ku yartahay ay haddana shaqo la'aan ay haysato maxaad ugu baaqaysaa madaxweyne farmaajo dhalinyarada dalka u dhawataanahay waxaan nahay ardaydii wixii had soo kacay waxaan macquul bari ka maalin inaan dawladda anaga la wareegin macnaheedu aan dawladda Soomaaliya macnaheedu gacan qabano oo markii wax barataan marka waxa dhihi lahaa anaga maanta waan baranay waxna waan baranaynaa laakiin dadkiina caawlaha idinka way ogaada waa tahay ninkani waa magacii waxa lagu magacaabaa Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ku magac dheer Suleymaan Tubeec waa wiil da'yar oo jira 19 sano oo ka hadlay fikradiisa iyo waxa uu jecel yahay barnaamijkeena ayaad waqti walba ku maqli doontaan maxaad filaysaa waa anigoo Iraaq Cabdi Cilmi ah oo idin leh السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.